xukuumadda Soomaaliya oo ka duulaysa tala soo jeedinta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa ku dhawaaqday inay gogol wada tashi ah ay u fudisay golaha mustaqbalka Soomaaliya kuwaas oo iyagu ku baaqay inuu madaxweynuhu qabto shir wada tashi ah ka hor 20ka January kadib shir ay ku yeesheen magaalada Kismaayo. Qadaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqday inuu fulinayo go'aankii ka soo baxay shirkaasi ayaa xukuumadda faray inay iclaamiso shir degdeg ah oo looga hadlayo mustaqbalka Soomaaliya waxaana xukuumaddu sheegtay in shirkaasi uu magaalada Muqdisho ka dhici doono 1 February ee sanadkan. Su'aasha ugu weyn ee dad badan oo Soomaaliyeed isweydiinayaan waxay tahay Siciidan iyo Axmed Madoobe oo kamid ah golaha mustaqbalka Soomaaliya ma imaan doonaan magaalada Muqdisho mise ku qanci doonaan soo jeedinta xukuumadda ee inuu shirku ka dhaco Muqdisho. Dad badan oo siyaasiyiin ayaa aaminsan in tan ay tahay qodobka ugu adag ee mucaaradku ay wajahayaan maadaama xukuumaddu ay ku dhawaaqday shirkii laga dalbaday laakiin iyadoo ay go'aamisay inuu shirku ka dhacayo magaalada Muqdisho. Waxa jira warar soo baxaya maalmihii la soo dhaafay oo dhan oo sheegaya in golaha mustaqbalka Soomaaliya ay rabaan in shirka ay la yeelanayaan madaxweynaha Soomaaliya iyo xukuumaddiisa in lagu qabto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug. shirkuna uu martigeliyo hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. hase yeeshee xukuumadda ayaa raacday dariiq taa ka duwan oo ah inuu shirku ka dhaco magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. taas ayaa loo arkaa inay tahay caqabadda koobaad oo shirku wajihi doono maalmaha soo aadan ama ka hor inta aan la gaarin 1 February ee sanadkan 2025. Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxa ay si weyn isku hayaan dawladda federaalka waxaana ay xitaa cabsi amni ay ka qabaan imaanshiyahooda magaalada Muqdisho sida ay tilmaamayaan xogaha ka imaanaya dhanka golaha mustaqbalka Soomaaliya. taasina waa mid keenaysa in shirkan oo shaki ku jiro inuu mar kale qabsoomi doono 1 February. Marwa Fertility Center waa xarun caafimaad oo soo celisay farxaddii iyo rajadii qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ku dhawaa inay kala tagaan dhalmala'aan darteed. halkan waxaa lagu daweeyaa dhalmala'aanta waxaa lagu dhisaa mustaqbal. Marwa waa furaha qoyskaaga berri soo booqo ama nagala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda. xukuumaddu waxay sheegtay in shirkan iyadoo ay xil saartay farsamayntiisa guddi wasiirada uu hogaaminayo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dawladda federaalka Xasan Macalin waxaana ay sidoo kale dhanka golaha mustaqbalka ay ka dalbatay inay soo magacaabaan guddi farsamo oo guddigan xukuumaddu ay magacaawday la shaqeeya si uu shirku ugu qabsoomo jawi wanaagsan. golaha mustaqbalka Soomaaliya shirkoodii Kismaayo waxa ay sheegeen in talada Soomaaliya ay meel kale aadi doonto haddii madaxweynuhu uu iska indhatiro baaqooda ku aadan inay qabanayaan shirkan. qadaba suurtagal ma tahay in Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ay yimaadaan Muqdisho oo shirkaasi ka qayb galaan? aragtidaada nala wadaag muuqaalkana leegno saaro si shir gareey aad iyo aad u mahadsantiin.